kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka TV-ga Hilla. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa la kulmay madaxweynayaashii hore ee dalka. Wafdi hogaaminaya gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Shir looga hadlayay ammaanka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ay ka qayb galeen laamaha amniga ee magaalada Gaalkacyo ayaa lagu qabtay magaaladaasi. wasaaradda awqaafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa la aqbalay ku tilmaamtay waxyaabaha ka soconaya hoteelada ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho iyo sidoo kale waxyaabaha ammaanka duuriya oo ku sii baahaya caasimadda. magaalada Gaarisa waxaa laga soo sheegayaa in uu ku sii kordhayo saacadihii ugu dambeeyay cudurka coronavirus iyadoo tiradada corona ay ku geeriyoodeen magaalada Gaarisa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. warkii aad kala socoteen telefishinka Hilla daawadayaal xilligan wanaagenta.